Gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii degmada Cabbalad Xaawo Cabdicasiis Xareed iyadoona caawa gudoomiyaha gobolka Gedo uu soo saaray warqadda xilka qaadista gudoomiyihii hore ee degmada Balad Xaawo laguna bedelay gudoomiyaha cusub ee degmada Mudane Shirac Cabdulaahi Xasan Keenan. Gudoomiyaha cusub ayaa mar soo ahaa taliyihii NISA ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Magacaabista gudoomiyaha cusub ee caawa la magacaabay ayaa maalmahanba si weyn aad u hadalhayeen bulshada ku nool gobolka Gedo. Sidoo kale waxaa caawa la magacaabay madaxa xiriirka xuduudaha degmada Balad Xaawo oo loo magacaabay Mudane Cabdifataax Salaad Hufood. Magacaabista gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ayaa ku soo aadeysa xilli khilaaf xooggan oo kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland ee gacan ku haynta ama maamulidda degmada Balad Xaawo. Balad Xaawo ayaana ah magaaladii ugu horeysay ee si weyn u taageertay dowladda federaalka Soomaaliya. Balad Xaawo ayaa ah marin xuduudeed ganacsi oo u ah degmooyinka Balad Xaawo, Mandera iyo Soofto oo u kala goosha ganacsiga saddexda dal. Cali Yare, Kalson TV, Balad Xaawo. u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.